بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى. وقهرين إلهي تبارك وتعالى يا نمهد نقياه الله ينقو كل ميعا ومدشا قيمها بدن aynu waxa weeyaan ku karaameynayno sunnadeeni nabiga sallallahu alayhi wa sallam madal qiimo badan oo wax badan oo kamida lagu soo khatimay ilaaha wanaaga ina soo waafajiyay ayaan u mahadnaqayaa falhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. waxa kale oo mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee madashan qiimaha badan soo qurxisay ee soo xaadirtay kulligood waan u mahadnaqayaa. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasiiradeena sharafta badan ee goobta ku sugan ee uu hormoodka u yahay wasiirkeena diinta iyo awqaafta Sheekh Abdurrazaaq Xuseen Cali Sheekh Albani aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waxa kale oo si gaar ah ugu mahadnaqayaa شيخنا شيخ عبد الرحمن محمد علي أبو حذيفة oo isagu ah sheekha caawa madashan sababta u ah inaynu ku kulanno. waa sheekhi xalqada qiimaha badan ee walaalkeenu ka soo sheekeeyay maraaxishay soo martay. waa sheekhi inoo soo daadihinayay muddada inta leeg ee u soo sabray. saaxiibkay sheekh Cabdurrahmaan Abu Xudayfa oo runtii suxba dheer iyo walaaltinimo soo jireen ay naga dhaxayso. waxa runtii aan uga mahadnaqayaa sabirka iyo dhabar adayga uu u soo sabray, waayo run ahaantii ma sahlana kutubta halkan lagu dhigay si sahlan inta loo bilaabo in loo khatimo. waxay u baahan tahay sabir iyo dhabar adayg iyo go'aan iyo geesinimo dhammaystiran bay u baahan tahay. waxa la inoo sheegay halkan in lagu khatimay as-sunanul arba'a, sunanta afarta ah. waa afarta imaam waaweyn Abu Daawud iyo Nasaa'i iyo Tirmidhi iyo Ibn Maajah oo Riyaadus Saalihiin ka horeeyay. run ahaantii hal kitaab oo kutubta kamid ah ayaa culeyskeeda leh inta la bilaabay in la dhameeyo. marka sheekha u badheeray ee u sabray inuu sunanta darafka intuu kaga qabto u dhammaystiro waa runtii dadaal mudan mahadnaq iyo dhiirigelin labadaba. sidaad wada ogsoon tihiin sunanta afarta ah waxay ka mid tahay kutubta dawaaweynta sunnada ugu mudan ee la yidhaahdo al-ummahaatu sitta. lixda kitaab ee ummahaatu sittaha usuushii iyo asaasiyaadkii sunnada lagu koobay waa afar kamid ah. marka waxaynu oran karaa sheekhu dawaaweyntii sunnada ugu muhiimsaneyd ee ugu mudnayd afar kamida marka uu dhigay labadii saxiix unba ummahaatu sittaha ka maqan, Bukhari iyo Muslim. labadaana sheekha waxaynu ka codsanaynaa khayr Allah siiyo sidoo afartaaba ugu soo sabray in saxiixaynkana uu ugu sabro oo halkan uu ku dhigo, oo insha Allah habeenada kamida aynu isugu nimaadno khatinka saxiixaynka. run ahaantii mawaahibta iyo waxyaabaha ilaahay dadka ugu deeqa waa kala duwan yihiin. waxaan oran karaa Sheekh Cabdurrahmaan Abu Xudayfa waa nin sabir iyo dulqaad iyo go'aan adag leh, oo haddaanu go'aanka iyo casiimada lahayn kamaba soo baxeen waxa weeyaan mas'uuliyadda inta leeg. waan uga mahadnaqayaa walaalkay juhdiga iyo dadaalka uu bixiyay. waxa kale oo runtii aan hambalyeynaya oo farxadda qiimaha badan aan la qaybsanaya ardaydii muddada inta leeg u soo dhabar adeegtay inay u soo fadhiyaan majaalista xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam. inta haddii aan kaga baxo muqaddimada oo aan u mahadnaqayo mas'uuliin iyo madax iyo culimo iyo waxgarad iyo arday intaba rag iyo dumarba, waxaan uga gudbayaa sunnada rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa al-masdar athani min masaadir tashriic al-islaami.
masaadirta tashriica islaamiga laga qaato waa masdarka labaad ee soo labeeya quraanka kariimka ah oo masdarka koobaad ugu mudani waa kitaabullah waxa soo labeeya mataanaha ku ee la xidhiidha waa sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxana xaqiiqo ah sida uu kitaabkuba wahyi munazzala u yahay ayaa sunnada rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam ay wahyi u tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala uu nabigiisa muhammada u waxyooday oo ku soo dajiyay taa waxa tilmaamaya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yiri wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nabigu sallallahu alayhi wasallam kuma hadlayo oo waxa uu idin kula hadlayo uu idin soo gaarsiinaya ma aha illa wahyi loo waxyooday mooyaane idan sunnatu rasuulillah wa wahyu min Allah subhanahu waxa kaloo si cadaynaya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay sunnada inuu ku soo dajiyay nabigiisa bil inzaal taasina waxay tilmaamaysaa inay tahay wahyi munazzal ah oo alla waxa uu subhanahu wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima nabi muhammadow ilaahay korkaaga wuxuu ku soo dajiyay kitaabkiisa sunnada الحكمة هي السنة وهي قرينة القرآن واتي كل ما نيد مرنبا أن وحويان كسوع من كتابك الله سبحانه لبدا وحا لغو تلمامي سودجين إلهي كتابك السنة كوكو سودجي وعلمك ما لم تكن تعلم وحانوك بري وحاند هروغي وكان فضل الله عليك عظيما إلهي ديقضا وكركاغا كوغالا ديستنا وحي أهاتي مدوين وأنفضضين سنة رسول الله نبي قات المامي صلى الله عليه وسلم إن يتهي كتابك قرآن كامت كل مان ومرنا بأن كدح بحي ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه والنبي قول صلى الله عليه وسلم هو ياي براروغا ودرين كي نسوچ يديا وحل ليسي كتابك قرآن كآه وحلمدي هنوي يقول لما يهو الله سعلا وسنة إذن السنة هي قرينة القرآن تفسر القرآن وتبينه إلهي بايد تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وعن النبي محمد وكوكو سودة قرآنك سيادتك أقو عضيسو وحلو سودة إيا قرآنك إيا مرادك الله سيادتك فافايسو أقو عضيسو سيدا درتي مجملka iyo awaamirta duuduuban ee aan faahfaahsanayn quraanka dhexdiisa ku duugan waxa faahfaahinaya ee cadeynaya waa sunnada oo ilaahay markuu yiri wa aqiimu salata wa aatu zakah awaamirta mujmalka duuduuban ee alla uu nasiiyay waxa qeexaya ee fasiraya ee faahfaahinaya waa sunnatu rasuulillah salaada ragcadaheedii arkaanteedii waajibaadkeedii zakada xoolaha uu ka go'ayo qadarka ka go'ayo xilliga uu ka go'ayo waxa faahfaahinteedu waa fi sunnah idan sunnatu rasuul ahmiyada ay leedahay iyo makaanada ay diinteena kaga sugan tahay waxa kaaga filan inay tahay qariinatul qur'aan tii quraanka ku lamaanayd ee cadeynaysa fasiraysay nabiguna uu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inaani kala tageyn ilaa qiyaamaha darka ugu soo arooraan iyagoo wada socda وأن كلا صعنين ورسولك وحوري صلى الله عليه وسلم ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض كلا تجي ما ينلبضاس الكتاب والسنة إلا إدرك يقصوا أروران يقوض الصعدة ولا ليال وحنكسو كوبيا كلمة ديدة سنة الرسولك وتمكان دا يدرجة دا دينتين كله سنة الدرجة داله هي مكان داس إن لجود دالة دراسة ده الله رجع الله فريسته وحفظود معها وأهرن علص قفك أفريسته تشلبه دول كأودجانا كالين وين أو مقلة أي دين تكبوحية أو مهمة ولذلك أيتها أهرن مهمة إن علماء جودهان أي حلوين إسكسارا دراسين تأيي دقيست سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدو يقوم مدنيهين أمهات ستها وأفرت سننتا إيه صحيحين قبل الدقو
waayo dee qur'aankii ayaaba faahfaahintiisii iyo fasirkiisii aynaan uga maarmayn inaynu sunnadiina aqoon u leenahay waa laba iskaabaya oo iskaashanaya oo midna ka kale aanu ka maarmin walaalayaal waxaan ku soo koobayaa caawa madashaynu joognaa waa madal muhiima oo masjidul ansaar aynu ku soo gabagabaynayno xafladda qiimaha iyo qaayaha leh ee lagu soo afmeeray sunantaas waxaan leeyahay sheekhuna mar labaad iyo mar saddexaadba aad buu u mahadsan yahay ardaydii ka faa'iidaysatana waa mahadsan yihiin sheekhana waxaynu leenahay halkaa ka sii wad kulligeenbana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo kuwii majliska loogu dembi dhaafay ee darajaad kor loogu qaaday وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا